Kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee aynu ka helayno dagaalada ka socda wadamada Ruushka iyo Ukraine, khaasatan gobolka Kursk. Mutadawiciin ka soo jeeda Belarus ayaa ku biiray dagaalka ka socda wadankaasi Ruushka, khaasatan gobolka Kursk, kuwaasoo ka barbar dagaalamaya ciidamada Ukraine, gaar ahaan koox ku gaashaaman taangiyo laguna magacaabo Tuur, oo ka mid ah guutada 225aad. Lafdhabarta guutada 225aad laguna magacaabo Tuur ayaa lagu aas-aasay mutadawiciin ka soo jeeda dalkaasi Belarus. Kooxdan ayaa waxay qayb ka ahayd duulaankii gobolka Kursk, iyadoo burbur iyo khasaare gaarsiisay ciidamada Ruushka. Furimaha dagaalka gobolka Kursk waxaa lagu arkayaa taangiyada kooxdan ka tirsan guutada 225aad oo calankooda cadaanka, guduudka iyo cadaanka ah uu ka dalbanaya taangiyada dushooda. Kooxdan reer Belarus ee ka mid ka ah guutada 225aad ee ciidamada Ukraine ayaa ku qalabeysan taangiga T90M Parov 3 oo casri ah. Taangigan ayaa ah taangiyadii ugu dambeeyay ee ay hormarisay dowladda Ruushka. Tan waxay micnaheedu tahay in Belarus laba door ka ciyaarayso dagaalka Ukraine iyo Ruushka u dhexeeya, iyadoo taageero lixaad leh oo caalami ah u muujisay dalka Ruushka, haddana si muuqata uga dagaalamaysa furimaha dagaalka ee dhinaca Ukraine. Mutadawiciinta Belarus ayaa si weyn ugu biiraya dagaalka ka dhanka ah Moscow, iyagoo ku sababeeyay ilaalinta midnimada iyo madax-bannaanida dariskooda Ukraine, sidoo kalena kasoo horjeeda siyaasadda dowladooda ay ku taageerayso Ruushka.